بسم الله الرحمن الرحيم. halkan ugbad helta ku kamid asxaabta soo dhawaada. maanta waxaan sameysanaynaa alaabtaas isku jirjirta oo ka sameynaa alaabooyin fara badan markaas aan isugu dardarnay. asxaabta ugbad soo dhawaada nala fiirsada. halkaas waxaa noo yaala waa khalka nooca rabtid baa soo qaadan kartaa, ama kan cad ama kan gaduudan, kana horta qaalisan aad u fiican. halkaasna waxaa noo yaala basbaaska gaduudan oo bilbilig ah oo la shiiday, midka markuu gaduuto aadka loo shiido aadka u gudana marka la shiido weeye. halkaasna xabad soodo oo ana u jeeda la ii shiiday weeye oo organic ah weeye. taasna waa olive oil, iyaduna organic hadda heli kartid oo nooca fiican ah. waa taasa waa nooc fiican weeye. markan kun olive baa jirta oo adduunka rogtay. halkaasna waa sanjabiil adoo qiyaastii qaadada haafkeeda ah oo aan soo tumay weeye. sanjabiisha oo sideeda ah weeye, mid qalalan ama mid qoyan. mid qalalan waa isticmaali kartaa haddii haysatid iyadana. halka waxaa noo yaala bakeeriga shaaha oo caadiga ah. marka bakeerigaas shaaha waxaan ku qiyaasanaynaa, waxaan marka ka rabnaa insha allah haddii ilaahay idmo 3 meelood meel. koobka marka 3 meelood marka loo qeybiyo meel kamid ah baan rabaa inaan isku daro. waa kaasaa bakeeriga 2 meelood baa bannaan, waa intaas waa khal. haddana waxaan ku daraynaa insha allah haddii ilaahay idmo oliifta iyadana waxaan ka isticmaalaynaa koobka 3 meelood meeshiis baan ka isticmaalaynaa. inta bannaan baa badan, 2 meelood baa bannaan, 1 meel baa waan ku shubay. waa kaasaa soo ma jeedaan. ما شاء الله تبارك الله. alaabtan alaab fiican weeye guriga ku sameyso. dadka lawyaha laga hayo oo lawya xanuunka maaragtay uu dilooday, wallaahi aad iyo aad bay ugu fiicantahay, aad iyo aad bay ugu fiicantahay. haddana waxaan ku darayaa basbaaskii badooda baan ku darayaa. markaasaa halkaas qaado oo buuxda baan ku daray. halkaas qaado oo buuxdaan ku walaaqaya haddii ilaahay idmo. 2 qaadana waad ka dhigan kartaa, laakiin meelaha jirka sida kilkilaha oo kale iyuusan kaa taaban, gacmaha meelo laalaabka xaglaha iyo waxaas iyuusan kaa taaban. suxulada banaanka waa ka marin kartaa, gacmaha waxaad ka marin kartaa. 1 qaado oo xabad soodana waan ku daray. xabad soodadaas ana u jeeda la ii shiiday, waa organic. miraheeda iyada habaa la ii shiiday. marka si fiican isugu walaaq. marka aan si fiican isugu walaaqno, alaabtan maxay tahay haddaba? alaabtan maxaan ku sameynaynaa, maxaase aan u isticmaalaynaa? alaabta maanta waxaan u isticmaalaynaa joint bank. weliba inta kala goysa inta laga hayo oo aadka ku xanuunaya, lawyaha, suxullada, gacmaha meeshaas uga laalaamaan, faraha laftirkooda. dad waxaa jira faraha maxaa ku radaa iyaguna ka xanuunsan. marka alaabta tan oliifta iyo khalka iyo sanjabiisha, 3daasba waxa weeyaan waa xanuun baabi'iyaal weeye, oo aad bay qandhada u jabiyaan, oo bararkay dejiyaan, oo xanuunkay dejiyaan. rheumatismta iyo bararka ku haya iyo kala goysi xanuunka, intaasba waxa weeyaan dhakhaatiirtu waxay dhaheen hala isticmaalo. sanjabiisha afkadna waa ka cabi kartaa, iyadoo qoyanna lawyahaga saari kartaa. bal tijaabiya. dadkii tijaabiyey waxay dhaheen wallaahi wax yaab leh baa lagu arkay. xabad soodaduna hadda waaba nabigaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam. haddii rheumatism xooga ku hayso, haddii arthritis ku hayo, haddii lafa xanuunka hayo, osteoporosis iyaguna ah, isticmaal. waxaad isticmaashaa 14 beri. markaa isticmaasho balka bacdina la soo xiriir haddii la hadmo. habeenkii markaa seexanaysa ku dhaboq juq ku sii mara yarasa ugu duub. maasha allah tabaaraka allah. ubaad mar walba waxay idiin soo gudbinaysaa waxyaalo oo muhiim ah. nala socda, nalana wadaaga, subscribe, like, share, siiya. asalaamu calaykum.